السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دwow kanaalka Guushaytus. Xakamee fikirkaaga. Afkaartu waa sabab u noqota waxgaradkeena, qiyamkeena, ictiqaadkeena iyo mabaadi'deena. Fikraduna waa bilowga hadafkiisa himilada, waana marjic caqligu ugu noqdo khibrada iyo tarjubooyinka ee sheega macnaha shay walba, sida reeraynta iyo xanuunka nolosheena. Fikradda waxa laga yaabaa inay sabab u noqoto xanuunada nafsiga ah iyo xanuunada xubnaha ku dhacaba. Fikraddu iyada ayaa sabab u noqota inaad nolol fiican ku noolaato. Fikradda xanuunka aad ka fikirtaa xanuun bay keentaa. Fikirka aad cabsi ka fikirtaana cabsi buu keenaa. Fikradda aad calool adayg ka fikirtaana calool adayg bay keentaa. Fikradiisa ayuu insaanku kaga dhigi karaa caalamkiisa ubax ama qodax. Fikraddu ma laha xuduud waqti. Fogaanshaha iyo goobtu midna raad kuma yeelato. Fikraddu waa sabab u ah habdhaqankeena iyo natiijooyinka ka dhasha. Fikraddu waa ruuxa ka dhigta inuu noqdo ruux iimaan leh, waana ruuxa ka yeesha inuu yeesho asluub nololeed iyo jir caafimaad qabta. Waa ka dhigta inuu aabuhu noqdo aabo wanaagsan, hooyaduna hooyo wanaagsan. Waa ka dhigta inuu noqdo ruuxu shaqaale wanaagsan ama maamulo wanaagsan. Xaqiiqadu waxay tahay adiga iyo aniguba iyo ruux kasta oo dunida ku nooliba meesha aan taaganahay waxaan ku gaadhnay fikirkeena shalay, meesha aan bari joogi doonana waxaan ku gaadhaynaa fikirkeena maanta. Waxaan ogaaday in aadamuhu natiijooyinka uu helaa ka timaado sabab lagu celceliyay, taas oo ka xidhan dareenkiisa ilaa uu isku bedelo ictiqaad qoto dheer, taas oo kadibna caado u noqota oo intaa kadib isagoo aan ka fikirin sameeyo, taasina ay sabab u noqoto fashilkiisa, guushiisa, farxadiisa iyo murugadiisa intaba. Xataa haddii aan eegno ciyaaraha, waxaan arkaynaa ciyaartooyga tenniska ciyaara ee la yiraahdo Andre Agassi, kaasoo ku jira mid ka mid ah 10 ugu horeeya caalamka, inuu khasaaray muddo badan intii uu dhalinta ahaa. Dadka khibradda lahaana waxay kula taliyeen inay wanaagsan tahay inuu iska casilo ciyaarta, iskana dhaafo, maxaa yeelay wuxuu dhaafay 30 jir, mana awoodi doono inuu dhalinta yaryar ka guuleysto. Mid ka mid ah saaxiibadii ayaa ku yiri, si aad karaamadaada u ilaashato oo aad taageerayaashaadana fikrad fiican kaga tagto, waxa kuu fiican inaad is-casisho. Waxa uu ahaa Andre mid hadalladaas aad uga xumaada, kuwaas oo ahaa qaar mandiq ah. Kadib buu maqlay cod hoose oo leh, ha dhagaysan kuwaas, mid kastaaba wuxuu ka hadlayaa siduu wax u arko. Isku day mar kale, laakiin bedel asluubtaada iyo afkaartaada. Dhab ahaan Andre uu bilaabay wuuna ka fogaaday dadka oo dhan si uu u fikiro si degan oo mustaqbalkiisa u qorsheeyo. Bil kadibna Andre wuxuu qorsheeyay inuu ka qayb galo ciyaarihii adduunka. Xataa maalinkii u dambeysay ee cimrigiisa, khabiirkii horumarinta bulshada iyo khabiirkiisii tababarka nafsiguba waxay ogaadeen in sirta ka dambaysa khasaarihiisa ay tahay afkaartiisii hoose ee ah mid taban, oo had iyo jeer ka fikirta da'da iyo dacfiga iyo inaanu awood u lahayn inuu guuleysto. Oo haddana wuxuu ictiqaadkiisu ahaa mid taban, taas oo raad weyn ku reebtay dareenkiisa iyo suluugiisa. Wuxuu ahaa mid bilaaba ciyaarta isagoo aaminsan inaanu guuleysanayn, natiijaduna waxay noqotaa siduu u fikirayay. Wuxuu bilaabay tababar nafsi ah oo dhisa ictiqaadkiisa. Saacado badan ayuu tababarka ku jiray ilaa ay aaminaadiisii isbedeshay oo ay fikradiisi noqotay mid togan. Tababarkiisii nafsiga iyo jirkuba ay sabab u noqdeen in lagu tiriyo 10 ciyaartooy ee ugu horeeya dunida. Bal wuxuu noqday mid aad loo ixtiraamo oo dadku ku sheekaystaan, maxaa yeelay wuxuu awooday inuu naftiisa ka guuleysto iyadoo ay jirto arrimo gudaha iyo dibaddaba raad ku yeelanaya. Saaxiibkayow, afkaartaada ilaali, waa saamaysa mustaqbalkaaga. Iska ilaali fikirka xun. Fikrad kasta oo qadarkaaga hoos u dhigaysa iska diid, kana dheero. Kelmadaha iyo oraahyada laga yiri fikirka. Ciidan soo duulay waa la iska difaaci karaa, laakiinse fikir soo duulay lama difaaci karo. Dadka intooda badan waxay doortaan dhimasho
fikirkooda awgii. Ka digtoonow afkaartaada inay kelmad isku beddesho, waqti ayaa la arkaaye, garan maayo sababta ay dadku uga baqaan afkaartooda cusub. Waxay cabsi gelinayaa waa afkaartii hore. Afkaarta fiican oo dhan waxa laga fikiray kumanaan jeer, laakiin si aan uga dhigno afkaarteena mid aan leenahay, waxa waajiba inaan mar labaad si dhaba uga fikirno, si ay ula falgasho xididadeena jiritaankeena gunteeda. Waxa waajiba inaan u noolaano sida aan u fikirno, mar walbana waxaan ku khasbannahay inaan u fikirno sidaan u noolnahay. Fikraddu waa la doodista nafta. Ma jirto mushkilad awoodaysa inay waajahdo fikrad nidaamsan. Waxaan maxbuus u nahay fikirkeena. Fikirku waa shayga ugu adag, sidaa awgeed in yar oo inaga mid ah unbaa karta. Ugu dambayntii daawade, waxaan filayaa inaad wuxuun ka fahantay fikirka. Haddii ay tahay markii kuugu horreysay oo aadan horay noogu soo biirin, fadlan nagu soo biir oo nala noqo weheliye saaxiib dadka kale nooga dhow. Haddii kale oo nala tahay weheliye saaxiib, sii gaadhsii dhalinteena si ay dhiirigelin ugu noqoto iyo dhaqaajiye ku haga ka dhabaynta guushooda. Wabillaahi tawfiiq.